rabaa inaan laba kelmadood ka soo jeediyo furitaanka laanta cusub ee baasaboorada ee magaalada Muqdisho. midi waxa weeye wada shaqaynta ka dhaxaysa booliiska iyo hay'adda socdaalka oo aan kala maarmin hadday airport wada joogaan iyo hadday xarumaha baasaboorada laga bixiyo wada joogaan. waad u malaysay inay isaga dhow yihiin hay'adaha kale ee qaranka inaanu qayb ka noqono amnigeeda iyo ka warqabkeeda iyo la shaqaynteeda inta ay cagaheeda ku istaagayso laantan cusub oo u soo hoyatay bariga magaalada Muqdisho. nasiib wanaag aniga qudhayda Cabdicasiis baan deganaa marka degmada u horeysa ka faa'iideysanaysa xaafadayda inay tahay aad iyo aad baan iyadana ugu faraxsanahay. waa ku ogaa inuu saaxiibkay Koofi ii soo dhaweynaya si aanan meel fog u aadaynin. taas waxa weeye xagga wada shaqaynta booliiska iyo amniga. midda kalena waxa weeye guud ahaan ummadda Soomaaliyeed mashaariicda ka socota magaalada Muqdisho waxay qayb ka noqon doontaa 60 guuradii xorriyada dawladda federaalka Soomaaliya dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 1960kii oo fooda nagu soo haya waxay noqon doontaa waxqabadka lagu xisaabtami doono oo guddi anigu aan ka tirsanahay oo wasiirro iyo ay ku jiraan mas'uuliyiin sare oo qaranka ka mid ah oo diyaarinaya waxqabadkii iyo horumarkii uu sameeyey 60 sano dalka Soomaaliya laga soo bilaabo 60kii iyo siduu markuu soo gaaray meeshii u sareysay burburkii kadib haddana dib u soo kabashada wasaarad walba ama dawlad walba waqtiga ay timaado inta ay ku dareysay. marka waxaan u diyaar garoobaynaa 60 guurada tan inay noqoto mid weyn oo aad u ballaaran oo waxqabadkii 60 sano Soomaaliya ay wax soo qabsatay lagu muujin doono fagaare weyn oo loogu talagalay. marka waxyaabaha ugu diyaar garoobaynay ka mid tahay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hay'adda socdaalka servicekan ama shaqadan ay u soo dhaweysay iyada oo ka turjumaysa dareenka magaalada Xamar ee ballaaratay. annaga qudheena ayaa dhaweysaan sheegayba waxaan rabaa CID-da inaanu annakuna bariga aanu keenno sidaan oo kale dhawaana annakuna aan furi doonno haddii Ilaahay yiraaho. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.